agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Berbera waxa uu ka hadlay khilaaf maalmihii ugu dambeeyay ka dhex taagnaa shirkadda gaadiidka waaweyn ee Tawfiiq ee magaalada Berbera taasoo uu sheegay in ay isku murugsanayeen guddidii hore ee shirkaddaasi iyo guddi cusub oo la doortay waxaana uu sheegay in wasaaraddu ay soo kala dhex gashay isla markaasina si wanaagsan loo dhameeyay khilaafkii ka taagnaa muddooyinkii u dambeeyay xafiiska gaadiidka waaweyn ee Tawfiiq ee magaalada Berbera isla markaasina ay sameeyeen guddi ku meel gaar ah inta la soo dooranayo gudoomiyaha rasmiga ah ee shirkaddaasi Cumar Said oo ka hadlayay socdaalkooda ay ku joogeen muddo magaalada Berbera ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa oo runtii iyaguna gaadiid samaystay ganacsatadii oo gaadiid samaysatay iyo 50% aynu ku heshiinay dawladda Itoobiya gaadiidka oo si fiican u hirgelin intaas iyagoo dayacaad ay ku tahay ay haddana iyagu gudahooda iskhilaafeen waxaan u nimid inaanu annagu xirkoodii eegayna kadib markii ay wasaaradda yimaadeen codsi sameeyeen oo yiraahdeen soo kala gaadha ayaan u nimid dabadeetana arintoodii waanu gallay waanu baarnay waxaan ogaanay in maamulkii hore iskaashatada gaadiidka Tawfiiq muddadii la doortay sanad ay dhamaatay ay runtiina muhiim tahay in maamulka la sameystaan annagoo eegayna xeerkooda insha Allah waxaanu aad iyo aad runtii u ogaanay in xeerkooduna uu yahay xeer aan dhameystirnayn oo aan qodobo badan ku jirin oo 89kii la sameeyay marka loo eego 89kii xeer baabay sameeyeen way dadaaleen odayaashii waqtiga noolaa laakiin qolooyinkii ka dambeeyay xukumay darin marka in xeerkoodii la horumariyo muddo bil ah ayaanu ku aaminay in xeerkoodii la bedelo oo annaguna xaga sharciga ka saacidno in xubnuhu la diiwaan geliyo iskaashatada waxay ku qiyaaseen 1500 ilaa 2000 gaadiidka waaweyn ku isugu jira in la diiwaan geliyo oo ID card members loo sameeyo kadibna doorasho bil gudaheed loogu qabto iyadoo loo eegayo xeerkooda ujeedada wasaaraddu ka leedahay waxa weeyaan maadaama 1500 gaadiid ay iskaashatada ka kooban tahay waxay saameyn ku leedahay bulsho badan oo reer Soomaaliland intaasoo gaadiid intaasoo qoys bay gacanta ku hayaan guddi ku meel gaaro iyagu iska soo xuleen baan annaguna u magacawnay doorashadiina bil gudaheed bay ku galayaan runtii talaabo weyn oo runtii u hiilin doonta gaadanta gaadiidkooda iyo ta mustaqbalka ay noqon doonta